maalmaha soo socda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay wajahi doontaa muujado waaweyn oo culays siyaasadeed ah. mucaaradka ugu xoogan ee dowladda ayaa maalmaha soo socda bilaabi doona shirar kala duwan iyo waliba cadaadisyo mooshinno ah oo ka dhan ah xukuumadda uu hogaamiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. laakiin wax kasta waxa uga sii daraya culayskan dhinaca dowladda ay wajahi doonto soo laabashada Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ku soo laabtay magaalada Kismaayo. wararka ka imaanaya halkaasna ay tilmaamayaan in uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhana xukuumadda. haddaba soo laabashada Axmed Madoobe maxay soo kordhin doontaa? sidee bay u fasirayaan qaar ka mid ah dadka siyaasadda taxliiliya? xilligan Soomaaliya suuragal ma tahay mooshinka ka dhana xukuumadda ee dhinacyada mucaaradka hadda doonayaan inay abaabulaan inuu noqon doono mid hirgala mase waxa uu noqon doonaa mid noqda in uusan shaqayn, maadaama madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hadda isku aragti iyo isku ajandayaal siyaasadeed ay yihiin. Axmed Maxamed Islaam Madoobe dhowaan dib ayuu ugu soo laabtay Soomaaliya waxana uu gaaray magaalada Kismaayo halkaasi oo xarun u ah maamulka uu hogaamiyo. wararka ka imaanaya Kismaayo waxa ay tilmaamayaan in uu bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ka dhana xukuumadda. Axmed Madoobe ayaa markan isku arkay inuu loo baahan yahay in culays uu saaro dowladda federaalka ee Soomaaliya si siyaasaddiisa iyo hoggaanka maamulka Jubbaland ee gacanta uu ku hayo uu u helo sharciyad ka imaanaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. wararka ugu dambeeya waxay tilmaamayaan in Axmed Madoobe uu hadda raadinayo garab siyaasadeed oo weyn oo dhinacyo kala duwan ka iman kara, gaar ahaan dhinacyada mucaaradka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya is hayaan oo uu ka mid yahay madaxweynaha hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, xubno hore u soo qabtay xilalka ra'iisul wasaaraha dalka. isla markaana waxa suuragal ah amaba wararka aynu helayna ay tilmaamayaan in uu bilaabay in uu dhinacyo kala duwan oo wada hadallo ah uu u diro ama wada hadallo la furayo uu u diro Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. Soomaaliya waxay wajahaysaa xaalad siyaasadeed oo xilligan muuqanaysa in gudaha dalka siyaasad ahaan lagu kala tagay oo dhinacyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mar hore kala furteen. dhinaca kalena maamulada qaarkood ee dowladda federaalka ee Soomaaliya is wataan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo inta badan xubnaha baarlamaanka ayaa wajahaya ama doonaya in dalka laga hirgeliyo doorashooyin qof iyo cod ah, taasi oo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay ku tilmaamayaan in marka la eego sida ay wax u socdaan aysan suuragal ka noqon karin in doorashooyin noocaasa ay hirgeliyaan. qaramada midoobay gaar ahaan ergeyga xogayaha gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa sida kumeel gaarka ugu matala Soomaaliya James Swan ayaa bilaabay in uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta culculus ee ku sugan magaalada Muqdisho. ilaa iyo hadda inta la og yahay laba siyaasi oo waaweyn ayuu la kulmay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa dhex martay iyo James Swan dood ay yeesheen ama kulan ay yeesheen dood adag oo xoogan oo ku saabsan arrimaha la xiriira masiirka dalka, doorashooyinka, jihada Soomaaliya ee aadayso iyo haddii xisbiga himilo qaran ee Shariif uu hogaamiyo ay iska diiwaan gelinayaan guddiga madaxa bannaan iyo sohdimaha oo ay mucaaradka jiritaankiisa diidan yihiin. dhinaca kale shalay James Swan ayaa la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Muqdisho. Rooble ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira masiirka dalka. waxa uu ku qoray qoraalkiisa amaba uu ku cadeeyay waxyaabaha isla soo qaadeen inay tahay doorasho la isla ogol yahay oo loo wada dhan yahay. tani waxay muujinaysaa Rooble inuu ka mid noqday dadka daneynaya hoggaanka siyaasadda sare ee Soomaaliya. waxa uu xoray u soo maamulay xukuumadda xilli marxalad adag oo xasaasi ah iyo isku siyaasadeed oo khatar ah ay Soomaaliya taagnayd, laakiin go'aano adag uu qaatay ayaa sabab u noqday doorashooyin in la qaato, taasoo xitaa dhalisay in aanu isku soo sharaxin xilka ugu sarreeya Soomaaliya. Rooble ayaa xilligaasi noqday ra'iisul wasaarihii isagoo dalka jooga doorasho la galay isla markaana aan isu taagin xilka ugu sarreeya Soomaaliya oo marka la barbar dhigo xukuumaddii saddexaad ra'iisul wasaarayaashii soo maray ay inta badan jagada ugu sarreysa ee dalka isu taageen. haddaba
axmed maxamed islaam axmed madoobe imaanshihiisa kismaayo waxa ay furi doontaa culays adag oo siyaasadeed oo weyn. dadka quburada ah oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda gaar ahaan siyaasadda waxay leeyihiin waxay hadda u muuqataa axmed madoobe inuu bilaabi doono dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed taasi oo ku cadaadin doona dowladda federaalka ee Soomaaliya. laakiin su'aalo kale ayaa imaanaya oo muhiim ay tahay in la fasiro. waxaa qayb ka ah ilaa iyo culays intee leeg ayuu cadaadiska axmed madoobe shaqayn karaa isaga oo jooga magaalada Kismaayo, halka dowladda federaalka ee Soomaaliya cidda saameyn karaysa oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoogan la geli karaysa ama baratan adag ay tahay midda joogta magaalada Muqdisho. taasi waa midda keentay in Shariif Sheekh Axmed uu hadda noqdo siyaasiga ugu miisaanka culus ee hadda ay wajahayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kale marka la eego Puntland ayaa hadda ku jirta dagaalo xoogan oo ka dhana Daacish, taasi oo ay kula dagaalamayso buraha caalamiska. laakiin marka la eego siciidani culayska iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasiga ayaa la isweydiinayaa kaalinta uu ku yeelan karo, iyadoo Puntland dhaqaalihii ugu adkaa hadda ay ku bixinayso dagaalkaasi. dhaqdhaqaaq kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka socda waxa uu u baahan yahay dhaqaale lagu maalgeliyo. taasina waxay keenaysaa in marka hore shaqooyinka la hayo oo dhan meel la iska dhigo, isla markaana loo yimaado arrinta laga shaqeynayo oo ah siyaasadda. sanadkan 2025 inta badan Soomaalidu waxay isla qirsan yihiin inuu yahay sanad ka bedelan sanadadii hore madaxweyne Xasan Sheekh uu talada u joogay. waa sanad dadka doonaya talada dalka uu mid kasta raadinayo inuu sameeyo muuqaal siyaasadeed iyo haykal uu ku hanan karo dalka inuu hogaamiyo ama ugu yaraan uu ku abuuri karo saameyn siyaasi ah. taasi waxa ay keenaysaa in dowladdu ay u baahan tahay in shaqo badan ay geliso arrimaha siyaasadda, inkastoo amnigana uu yahay mid kale oo muhiimadiisa leh oo ah meelaha ugu badan ee mucaaradka wax dhaliili doona dowladda ay ka dhaliilayaan. laakiin hadda marka la eego siday wax u socdaan dhaqdhaqaaqyada jira, maamul goboleedyada qaarkood oo aan siyaasadda muujin aragtida ay ka qabaan oo aamusan rabitaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, dhaqdhaqaaqa axmed madoobe, mucaaradka ugu miisaanka culus yahay Shariif Sheekh Axmed, intaasba waxay muujinaysaa in jiha cusub oo siyaasadeed oo hubanti aana la aadi karo. laakiin wax kasta waxay ku xiran tahay isbeddelka federaalka ka yimaada iyo siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh oo isaga xilligan ay suuragal tahay in uu raadinayo amaba uu haysto garbo waaweyn oo siyaasi ah. wax kasta waxay kala cadaan doonaan dhammaadka sanadkan iyo jihada Soomaaliya ee qaadanayso. soo dhawaada saaxiibayaal, si macluumaad iyo warar kale oo dheeraad aad u heshaan ku soo biira YouTube-kan oo subscribe dhaha, share gareeya muuqaalkan, isla markaana saaxiibadiin la wadaaga. aad ayaad u mahadsantihiin.